waayahay kuwani waa diyaaradaha ay adeegsadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hoyaadka iyo harsimada u diiday maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab. bilihii la soo dhaafay diyaaradahani si joogto ah ay gobolada Soomaaliya gaar ahaan furimaha hore ee dagaalka kaga qayb galayeen, waxaana looga maarmay adeegyo badan oo ay markii hore qabanayeen diyaarado ajaanib ay leeyihiin, kuwaas oo lagu dhib qabay xilli kastana aan la helin. dowladda Soomaaliyana qarash badan uu kaga baxayay ku darso oo waxa duuliyaal ka ah dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo xirfadooda aad ay u sareyso kana tirsan geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. warbixintan waxaynu ku dul istaagi doonaa diyaaradahaasi casriga ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay adeegsadaan, dowladda Soomaaliyana ay leedahay oo ah hanti qaran. muuqaalkan sii share garay la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya, sidoo kale ku soo biri page-kan oo soo follow garay muuqaalkana meel dheer gaarsii si tan dhiirigelin ay ugu noqoto geesiyada qarankeena Soomaaliyeed ee cadawga har iyo habeen jiidaha hore kula dagaalamaya cadawga. diyaaradahan ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya ay soo iibsatay, waxaana duuliyaal ka ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. meelo badan oo furimaha kamid ah ay cadawga kula dagaalameen, sidoo kalena ku gacan siiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa xoreynta deegaanka oo iskaashanaya mar walba. waxa ay hoyaad iyo harsimo u diideen kooxaha naflacaariga ah ee argagixisada, kuwaas ee bararka qaar ku dhuumaaleysanaya dhulka hawdka ah. sidoo kale waxyaabaha looga marmay waxaa kamid ah gaarsiinta adeegyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, sida mararka dhaawacyada la soo qaadayo, saadka iyo saanada oo la geynayo furmaha hore ee dagaalka, iyo sidoo kale adeeg waliba oo halkaasi looga baahdo si dhaqsadana ay ku geynayaan, maadaama waqti waliba heegan ay ku jiraan, iyaga iyo askarigubana ay diyaar u yihiin ka jawaabista baahi kasta oo furimaha hore ee dagaalka ka jirta. dowladda Soomaaliyana waxa ay ku guuleysatay diyaaradahan inay u soo gacan galaan ama ay soo iibsato, kuwaas oo si buuxda hadda u howlgala. sidoo kale waxaa la qorsheynayaa kuwaan kasii casrisan isla markaana meelo fara badan gaara amaba looga howlgalo in dowladdu ay keeni doonto. waxyaabaha xusidu mudan waxa ay ka mid tahay in hadda dalka dagaal uu kula jiro cadawga Al-Shabaab iyo sidoo kale cadow banaanka ah. waa qaar ka mid ah wadamada dariska sida dowladda Itoobiya, taas oo xurguf siyaasadeed iyo mid dowladba dowladda Soomaaliya ay kala dhaxayso. tanina waxa ay tallaabo iyo ka jawaabitaan u noqon kartaa haddii cadawga uu soo hunguriyeeyo amaba uu soo daandaansado xuduudaha dalka uu leeyahay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa har iyo habeen waxa ay u taagan yihiin la dagaalanka maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab. waxaa xusid mudan toddobadii aynu ka soo gudubnay gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe in howlgallo isdaba joog ah ay ka dhaceen laguna naafiyay maleeshiyadka Al-Shabaab. tirada khasaaraha gaaray kooxda Al-Shabaab waxaa lagu sheegay in ay ka badan yihiin ilaa 150 dhimasho ah marka la isku daro gobolada Galgaduud, Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Jubbooyinka. dhaawacyada ayaan tiro koob iyo xisaab lahayn, waa inta uun la arkay raqadooda meelaha dagaalka lagula galay, laakiin inta aan la ogeyn amaba ku ruux baxay godadka hoostooda iyo sidoo kale dhulka hawdka ah ayaan cidna u tirsanayn. taasi waxaa barbar socda in maleeshiyadku ay isi soo dhiibayaan marba marka ka dambeysa, kuwaas oo soo gacan galaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. haddii aad ku faraxsan tahay amaba aad soo dhaweyneyso tallaabada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen, gaar ahaan dhinaca diyaaradaha ay ka gaareen, kuwaas oo howlo badan ku qabsada, qaybta hoose ee faalada ama commentiga nagula wadaag. sidoo kale muuqaalkan sii share garay oo la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya, soona follow garay page-kan. sidoo kale muuqaalkan gaarsii cid waliba oo damiir damqada ee Soomaaliyeed amaba wadanimo uu ku jiro, si geesiyaasha qaranka ay tan dhiirigelin ugu noqoto, maadaama har iyo habeen furimaha ay annaga darteen ay ugu jiraan amaba qabowga iyo dhaxanta uu iyaga ugu dhacayo.